qof walba wadnada gacanta ku qabsaday wallahi inuu imtixaan ku dhacdaa maadaama wax imtixaan laga qaaday macallimiin ay ahaayeen ardayda waxay dhaheen macallimiintu waxay ku aadan jireen ardayda TikTok ay daawadaan barnaamijyo kale ay ku aadan jireen talo macallimiinta leeyahay imtixaanka ku dhici doonaan iyagana waxay daawadaan هذه أحيانا حاس لهاد ضدك دعدي ودي والدة تلير ودعدي أستري. وحوي إسكدي كران لكن أنت أن أوجهي أنت أني أن الله الله مش أنت أسوري سنة أن كشيء سنة برامج كان بقول كيب بقول وهنده كرا هذا الله سمي. بسم الله الرحمن الرحيم داود يال صاحب يال ملك السؤال جوكتان يوسوي البوات نقد داون إنسان التلفزيون كدرن وحينو هل كان ورئيسي أينو كلا يالنا إسحاق إبراهيم آدم ومركزي كمدة aqoon-yahanada Soomaaliyeed kana mid ah barayaasha magaalada Muqdisho waxaynu wax ka weydiin doonaa xanaanka la xiriira waxbarashada gaar ahaan 3,000 ee macallimiinta dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadanayso wuxuu ka mid yahay macallimiintii ku guuleysatay oo iminkana tababarka uu u socdo iyadoo markaasi su'aalo arrimahaasi la xiriiro aynu weydiin doonaa ugu horeyn ustaad ku soo dhawow TV-ga iyo raadiyaha daran بسم الله الرحمن الرحيم مدالو أديو تيمكا راديو دانان ومحسنتهن مركي والله وآد بانو دوهاي سودو نفتركاد runtii waxaynu ognahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in macallimiin 3,000 wajiga koowaad ay qaadanayso dabcan macallimiintaas ayaad ka mid tahay qaylo dhaan badan ayaa jirtay oo in wax isdawmarin iyo qaraabo kiilnimo iyo wax lagu keeno dadka qaar ay qabeen bal marka hore waxaad nooga sheekaysaa xanaanka soo martay in macallimada qaadashadeeda iyo marxaladda maanta aad taagantihiin iyo marxaladaha kala duwan ay soo marteen aad buu mahadsan tahay madaaro wallahi waa horta barnaamijkaas xilligii soo bilaabaday number 1 horta waxa la soo galshay baraha bulshada markii barta uu leedahay Facebook ama website uu leedahay wasaaradda ay soo galisay waxay dhaheen in la soo apply gareeyo barnaamijkaas cid u baahan oo la codsado oo qof looga daboreeyay aysan jirin barnaamijkii markii muddo yar oo ku jira haddana dib looga saaray kulli dad wax badan ay sheegayaan oo sababta looga saaray laakiin ani ma garan karo markii dambe dib ay haddana ay soo galsheen meeshan ka apply gareynay marka waxa is leedahay tabasho iyo badan xilligaas u baahnad maadaama liiskii aad ku soo baxday waxa is leedahay ugu yaraan garab aad u baahan tahay qof siyaasi ama qof is leedahay wasiirka u yaqaana inaad raadiso arintaas markuu wareys kugu soo dhacay barnaamijkaas haa waa sax way ugu soo dhacay ma sameysay isku day noocaas may sababta aan u joojiyeen waxay tahay oo ama isaga dhaafay waxay ahayd waxaan dhageystay waa inta badan wasiirka hadlaayay xukeenaha inta badan iyo barnaamijka ragii la waday oo ninka gudoomiyaha markaas oo laga dhigay oo barnaamijka waday sida Xasan Taata waa hadlay waxay dhaheen barnaamijkan xildhibaan uma baahan samadoon uma baahan sarkaal iyo wax la raadinayo oo wasiir laga dabareegay ma lahan muwaadin kasta oo aqoontaada ku tasho barnaamijkaas markaan dhageystay kalsooni badan ay gashay anigoo san isleeyahay niyo ama warkii Soomaalida uu yahay oo isdhigataa haddana wax u kalsoonaaday haddii warkaan sax u yahay barnaamijka marna kama xir doontade wax iska akhri adigu waa alxamdulillah barnaamijkii marka aad dhageysay markaan kalsooni ay gashay marka siya imtixaankii iyo diyaar garowgii aad ku gashay bal dadka aan la soconin ama qayb ka ahayn ma waxaa jiray telefoon la isu soo dirayay ma waxaa jiray oo koox la isugu xirnaa qaabkee dadka loo wada xiriirinayay dabcan oo ay in meelihii ay tagayaan loo fariimo loogu diro ama in la yiraahdo liiskaas ku soo baxday qofka qaabkee ku ogaan karay tusaale oo kale waxa ku ogaan karay sidii markii hore oo qadkii u soo dhigeen oo soo xayeysiin interview ma aragtaa candidates dadka ku soo gudbay oo list short listaha ID haysta ID-gaada iyo magacaada gelinay ama waliba ID-gaada gelinay waxa ku soo baxayo marka waa short list inaan ku soo baxday ama inaan ku xirtay boqolkiiba 80 ama 90 waa lagu soo gudbay cid laga reebay maanta hal shay lagu soo xaray dukumeentiyada oo dadka lagu apply gareynay dukumeentiyada aad u dabagaleen say sheegeen wasaaradda barnaamijkaas ay ku dadaaleen oo waxay fiiriyeen check up ay ku sameeyeen
ninkan applicationada oo soo dirsaday barnaamijka soo codsaday ma sax baa mase qalad iyagana way sheegeen oo afkooday ku caddeeyeen waxay dhaheen waa baaris badan aan gelinay tan way soo xareen oo taasay ku soo xareen be jaamacada iyo waxyaabahan jirnay ku codsadeen waxaa kaloo jirtay dad nasiibka saacid waaye wasaaradda oo kolley dabcan ma aqaano cabashay furtay markii dambe dad waxaa jiray educationkooda sax u ahaa oo shahaadooyinkooda iyo applicationada ay dirsadeen sax ahaayeen hase yeeshee waa shortlistihii dad noocaasa laga soo tagay oo candidateska aan soo galeen way jireen cabasho badan markii ay timaadina way fureen waxay dhaheen cabasho waa furan tahayo halkaasa lagu soo qoro wixii cabasho ah marka cabashadaas kadib dad markii hore oo si un looga tagay kadib cabashadaas ka faa'iidaysta ma jira way jiraan dhowr qof oo aniga arkay waxay jirtay oo cabasho markii ay fideen kadib xogtooda la baaray oo lagu soo daray dib loo fasaxay dad waxaa jirta cabashadii naftirkeeda markii wax la raashay kadib nasiibka oo si u saacidi waay way jireen dadka number 1 waxaa oo inta badan barnaamijka waa cabsida waxay ka taaganayd dadka moogtahay waa dadka Soomaalida waa oral society waxay dhaheen qof education ahayn lama qaadanayo shahaadada ku apply gareysay maxaa way nursing waa tagtay dadka waxay ku dhahay dismoral Soomaalidana waa aragtay education maadaama shaqadiisa oo iska adag tahay oo mushaarkiisna oo iska hooseeyo dadka education soo baxay way yaraayeen dad ganacsato codsaday dad waxarta oo jabajaajada oo gargaarida iska codsaday dad oo caafimaad ku shaqeynaya iska codsaday adi qof walbo jaaniskan arkay wasaaradda markii ay furtay waa iska codsaday oo heer jaamacadeedna gaaray ama wax u dhigmo dad waxaa jiray oo development oo high oo haystay oo aad u fiicnaa oo saas ku soo baxeen way jireen ma jireen ku soo baxeen dabcan marka processkaas markaa marteen oo imtixaankii ayaa la qaaday macallimiintii gobolka Banaadir ayaad ku soo baxday cabasho badan ayaa jirtay marka imtixaanka markii la qaaday dheer dadka qaarkood qashaa la siiyay oo waa loo qashay dadkii qaar waxay dhaheen oo dad ku soo baxay imtixaanada galay inta boosaskooda la tirtay dad kale lagu qortay bar arrimahaasi cabashooyinka noocaas dadka qabo maadaama aad marxaladaas soo martay maxaad ka dhiilaad waad ka ogtahay masar madaale horta arintaas way jirtaa cabasho way jirtay laakiin totally wax aaminsanahay wax isdaba marina ma jirin qof in loo qashay ama wax loo fududay ma qashkata waa yaraa xarunta aniga ku galay imtixaan dad badan ku galeen xarumaha dhowr meel ay ahaayeen xarun walba dad joogo oo aniga aqaano way jireen markii imtixaan laga soo baxay waa magaalada isku balansanay aan sheekaysan way jireen absolutely waxa oo ku turkuteen waxba ka jirin wax la yiraahdo horta waa qish in magaalada la soo galiyay ma jirin imtixaanka uu adkaa si markii loo fiiriyo waxa ula jeedaa waa tricks ku badnaa waxa u badnaa dugsiga hoose dhexe secondary formanada u badnaa oo waxyar ku jiray marka imtixaankana waxa aaminsanahay si cadaalad aan loo saxay waxa ula jeedaa waxba la isma daba marin inta aniga arkay waxaan ku qiimeeyay qofka imtixaanka markuu galo waa u tahay maadada 100 keeni karto maadada imtixaan markay ku liidatay maadadaas leedahay waa ku baasi kartaa ani imtixaanka hal maada ay u adkay halkii maadana meesha aan ka falnay imaatay natiijo wanaagsan ka keenay no inta rajaynay ugu yaraan inta aniga rajaynay waa isleeyahay waa meeshaas ma dhaafi karto waa qiyaasteedu waa meelihii ay imaatay maadooyinkani oo si fiican u garaacay oo maarta fiican u saaray oo maarta oo ani asla waa ku fiican tahay ku raaxaystay natiijo aan ku farxan ka keen maadooyinkani oo isdaaniyo alamuutay meeshan waa 8 maada la galay mid kastana waa dhowr iyo 10 su'aal ay ka koobnayd marka maadooyinka markaan galnay sidii ani markii hore ugu sheekaysanaa aan ka sheekaysana oo probability qiyaas aan ku sheegay natiijo oo u dhiganto maarta ay noqotay marka waxaad leedahay wax masuqa maanta la sheegi karo ama waxba la isdamariyo ama boosasa la gatay warkaasi ma jira miyaad leedahay xaqiiqatan horta bani'aadankan lama ogaan karo wax way iska dhici karaan laakiin intaan ogahay iyo intii ani aan la hadlay misinta aswareysana aan ka sheekaysanay barnaamijkan boqolkiiba boqol waxaan dhihi karaa si cadaalada loo sameeyay waliba waxaan ku dari lahaa in wasaaradaha kale ee dawladda federaalka noqoto ama state members ka noqdaan in xogtooda saas laga dhigo aad iyo dad badan
dad badana waxaa laga yaabaa inay dhahaan Soomaali markaa joogto inaad waxbarato waxay soo kordhis ma lahan shaqooyinka qabyaalada lagu bixiyaa reeraysiyaa jiro wax la mid ah marka waxaa leedahay qalinkeena ku ciil baahnay siyaasi iyo wax la mid ah looma baahnaa waxbarashada xoojima ma taagantahay xaqiiqa dadka aaminsan in Soomaaliya waxbarashada aysan wax faa'iido lahayn maxaad fariin u diraysaa oo sheegaysaa waxa fariin u diraa dadka noocaas aaminsan inay waxaasi ka waantoomaan wax bartaan adduunyadan ma jirto qof fursad la'aan oo meel ugu qoran tahay qof walba calaf uu leeyahay waxaan ku cilmi karaa qofku inuu wax barto ani maanta waxa aaminsanahay haddii wasaaradahan kale oo waliba wasaaradaha topka ah oo mashiiradooda ay fiican yihiin boosashano fiican ay jiraan haddii sidaan loo tartamo inaan ku soo bixi karo waa aaminsanahay qof walba oo wax barteen ku soo bixi karo qof walba wax bartayna oo ku soo bixi karo marka wax leedahay dadka maanta Soomaaliya taladeeda haya ama gobol ay joogaan ama maxaan ku raada maamulada steedyada ha maamulaan ama dawladda ha joogaan in sidaas oo kale shaqooyinka daafurnaantaas imtixaanadaas laga dhigo saas aaminsanahay waliba waxaan kale aaminsanahay oo ani aan aad u jeclaan lahaa in la sameeyo wasaaradda markii oo dhowr boos loo baahdo in la soo dejiyo hay'adaha sida ay sameeyaan oo kale markii la soo dejin haddana dadka wasaaradda mana sida wasiirka oo kale iyo agaasimaha iyo dadka barnaamijkaas involved ku ah shaqada hayo in laga dhax qaado dadka shortlistaha ku soo baxayo CV-gooda la akhriyo inta macquul ah oo boss candidates u aha oo la arko CV-gooda in experience sameesh ku xusan ay leeyihiin intii la soo qaado si gooni ah loo tartansiyo interview-gooda iyo imtixaanka ratingka iyo xulista manaha shortlistaha iyo longest wax dhan dad kale gacanta loo geliyo dadka shaqadaas gacanta ku haymaanay qolo ka madax banaan si manaha dhow la dhihin madaalaha hadduu meesha joogo haddii maanta tusaale oo ninkan nin kale mise qof asxaabtiisa meesha ku soo baxo aqoontiisa ku soo baxo hadhow waxaa imaanaya tuhun ah qaraabay ahaa ama saaxiibay ahaayeen laakiin rag oo meel kale ka imaadeen mise dad kale barnaamijkaas shaqo ku leh haddii loo dhiibo qofkii manaha booskaas ku habboonaa soo baxayo kadibna waxaa laga dhehli doonaa productive meesha ka soo baxayo shaqada oo wanaagsanaato dadka wada shaqeynaya oo isfahamaan shaqada xilligeeda la imaado xilligeeda laga baxo waxa soo baxay biyuur nadiif ah lagu raaxaysanayo goobtina ka muuqanayso shaqada in lagu markii imtixaanada aad gasheen kadib maxaa dhacay muddo waxa dhacday waa muddo la maqnaayeen imtixaankii waa la soo saxay markii imtixaankii la soo saxay xilligan leeyahay waa waqtigiis waa la joogaa waxa soo baxday waa la wada dhaxay oo sheeko magaalada waxa soo gashay macallimiintii iyadoo aan la soo saarin waxba natiijo soo bixin waxa soo baxday macallimiintii imtixaan way ku daayeen wallahi 7,000 iyo dhowr imtixaan qof gashay imtixaanka waxa la yiri waa kuna baastay iyo wax oo magaalada cabsi la soo galiyay bas wasaaradda markii waxay dhaheen waa natiijadii waa soo gelinayna ee dhigta ku haay adi ahaan waxa islahayd dadka dhacday hadii waalida taliir waa dhacday astri qof walba wadnada gacanta ku qabsaday wallahi niyo imtixaan ku dhacdaa waliba waxa kale oo sii dheereed oo baraha bulshada ardayda ay qabsatay maadaama wax imtixaan laga qaaday macallimiin ay ahaayeen ardayda waxay dhaheen macallimiintu waxay ku aadan jireen ardayda TikTok ay daawadaan barnaamijyo kale ay ku aadan jireen talo macallimiinta leeyahay imtixaanka ku dhici doonaan iyagana waxay daawadaan sheekada markaa baraha bulshada ku arkay akhriyay hal marna iguma soo dhicin imtixaanka waa ku xir doontaa waliba horta ilaahay ma qadarin aan haro oo imtixaan ku dhaco haddii dhici lahaydna waxaan rabaa inaan cabasho aan gudbiyo aan arko natiijada in lagu qanciyo in aan raadiyo oo iga go'nay sababtoo ah waa marka hore miisaan saaray mogtahay probability-ga mise qiyaas inaan ku soo bixi karo meel fiican ay joogtay marna maskaxda iguma jirin aan ku soo haray imtixaankaas bas waxay dhaheen marka imtixaanka soo dhow imtixaanka ma soo dhow natiijadii natiijadii la soo dejinaya in lagu dhawaaqo marka waxay sameeyeen qadka lagu soo shubay cid walba oo imtixaanka gashay baasaboorkeeda meesha la aaday iyo numberkeeda alle mugta imtixaan markii waa roll number gelina magacaada gelina oo ku soo baxa qof kale arki maysid unless aday ka soo ID-giis ama serial numberkiis iyadoo qofkii sharaftiisii aan waxba loo dhimin ayuu ogaanaya inuu dhaco ama inuu guuleystay labadaba waxa dhacday in imtixaan ku dhacay dhahay marna waa iska tanaasulay oo qariyay waxay qariyeen iyagoo sharaftooda difaacanayo waxay dhaheen waa waxaasniyo waa ka tanaasulnay ma barabnaba waa istijaabinay marka waa ma baraadin be markii goos loo fiirin imtixaanka oo ay ku dhaceen laakiin haddii sidii ardayda oo kale oo koodkooda la soo daadayn lahaa
macallin hebel waa dhacay macallin hebel waa dhacay baast iyo lagu soo qor lahaa iyo guddo iyo haray fashil weyn aan dhici lahaa wasaaraddaas horta waa macallimiinta waxaad leeyahay sharaftooda way ku ilaalisay taas dhankaas leeyahay marka ani isma waalin habeenkii maqrabadii markii qadka la galay oo asxaabtii wax badan ay soo waceen waryaabo fiiri ma bas waalin bay shaqada soo dhameystay guriga imaaday waa iska soo habeystay ani oo iska shaaheynayo maqrabadii ahmad ay soo wacay waraa fiiri ma dhacday natiijo wax la soo diray wax hambalyeynay iyo qof walbana wixii oo keenay intuu qariyo oo baasay iyo waxa soo burfaal soo saaranay marka maado kasto inta qofku uu ka keensaday waa la arkay sabab wallahi tababarka horta waa furmay muddo soo saarana way ilaamiyeen tababarka furmaayo macallimiinay kuwii gobol jirna soo baxaano kuwii joogana isdiyaariyaan wasaaradda islaam dheer bixisay waqti siisay ultimately tababarka waa bilaabaday tababarka wali waa socda shaqadii waa macallimiin fiican la keenay inkastoo oo markaas dad hadii meel isku imaadaan dagaal waa iska jirta mar waa iska imaanay wax complete ah waa lama helayo laakiin boqolkiiba 85-90 isgay jawiga waa caadi tababarka waa socda waxaas leeyahay waa process fiican oo soo maray meeshii laga rabay inuu sii maraya maadaama marxalado kala duwan ah soo martay marxaladii tababarka hadda aad joogto rag badan oo saaxiibadooda kula mid ah inta hartay ay hareen inta hadda tababar ku jiro ay ku wada jiraan rajada iyo waxa idin dhiban ah hiigsanaysiin intay gaarsiisan tahay mas'aladahay barnaamijkan sida loogu talagalay ayuu u fuli doonaa oo ku guuleysan doontaan oo inta dhimanna barnaamij sida loogu talagalay in ardayda Soomaaliyeed ee gobolada joogaan iyo kuwa caasimadda ku nool waxbarashadii ay wada gaarto sidii loogu talagalay barnaamijkan ku dhamaan doona mas'aladahay hadii oo wax kale aysan imaanin barnaamijkaas saas inuu noqdo waa rajaynaa 100% sababtoo ah wasaaradda iyadoo xaaladda wadanka ka jirta la ogyahay dhaqaaleyrada waxay ku dhiritay 3,000 macallin inay shaqaaleysiiso oo haddana tababar ay siiso macallimiin u qabato waliba macallimiinta iyagoo oo macallimiin tayo leh inta la keenay haddana mushaar oo extra ama huge ah lagu bixinayo barnaamijkaas waxaa isleeyahay wax badan ka tari karaa oo intaas macallin haddii hadda si fiican loo tababaro macallimiintu tababaran yihiin horta waa dhiirigelin iyo waxa waaye iyo processki iyo xanaankii wax yar intii kala dhamaan dad waxaa jira oo 10 dhowr sano wax soo dhigay oo advanced teachers ah iyo dad hadda cusub oo soo galshay marka barnaamijku waxa loogu dan leeyahay dadkii dhan si ala xadiis waa looga dhigo ardayda hadhow oo wax baraan dad tababaran oo u sameyn barnaamijkii macallimiinada fahamsan ardayda u dhamrinayo si wanaagsan wax u fahamsiinayo discussion u sameynayo tartamo u qabanayo oo waxbarashadii arday dhan walba loo dhiso ardayda wax la lagu shubo ma ahan ardayga marba wuxuu u baahan yahay marba dhinac kale laga dhiso akhlaaqiyadka laga dhiso ma aragtaa waa physical education naftirkeeda iskuulada waa ku yaryihiin waa very important waa subject waaye oo jimicsiga physical education taas loo jeedaa sida banooniga xaraka boodka orodka waa xiisad dhan oo muhiim ah ardayga maskaxdiisa inay kobciso oo ilaan ardayga waa 2 saacadood iyo 1 saac meel lagu mayn karo iska fadhiyo inuu jimicsi sameeyo oo exercise-kaas waxyar assignment soo qaato waa maadooyinkaas marka waxaas leeyahay macallimiintan haddii soo baxaan inay wax badan ka bedeli doonaan waxbarashada dalka jirto wax badan ay ka bedeli kartaa ugu dambeyntii maadaama dawladdu ay sheegtay in barnaamijkan wejigiisa koowaad uu yahay 3,000 sanadaha soo socda iyo la kordhin doono saaxiibada kula midka ah intaad taqaano intaadan aqoonin oo barnaamijkan ka haray ama siyaabo kala duwan u gaaraan qaarkood aaladaha la isticmaalo deegaanada ay joogaan aysan ka jiri karin sida internetka oo kale qaarkood fursado kala duwan oo ama ku dhacayba iyagu si fursadaha dambe ugu faa'iideystaan maxaad aad wadaagaysaa oo diraysaa horta macallimiinta hadda la qaatay weli lama howlgelin gobolka banaadir waa 1,000 macallin tababar hadda oo ay raasniin gaheer iyo waxay ku jiraan 20 December ay ku kala jiraan tababarkii uu socdo bishii kooda dhamaatay tii labaad hadda sii socoto kulli waa destination kana waa markii hore 6 bilood la sheegay markii ugu dambeysay waa 3 bilood iyo wax sanada socona iyo waxba iska jiro horta muddada oo qaadan doono tababarka oo fixed ka ah horta ilaa hadda macallimiinta ma hayaan wasaaradda kaliya og marka waxaas leeyahay macallimiintan haddii iskuulo oo loo helo oo la howlgeliyo oo jadwalka fadhiisto oo la kofargareeyo baahidooda ilaa moogtahay macallin iska daldal ma ahan oo waqtigaas leeyahay waa challenge inuu sameyn doono waxaa kale meesha ku jirto macallimiin naftirkooda markii la howlgeliyo waxaa raba mashaarkooda
baahidooda xuquuqtooda si joogta inay u helaan. waxaa iska jiro marmar oo magaalada ku jiro macallimiinta naftirkooda 3 bil ka maqnaane, marka taas naftirkeeda dhalisheeda leedahay nin shaqaynayo haddii oo saas ay noqoto oo guni waxyaabo kale aysan oo meesha ku jirin. dabcan taas waqtigeeda u tegi doonaa kama hordhici doono maadaama hadda shaqadii ay socoto idinkan marxaladii tababarka aad ku jirtaan xilliyada marka soo wajahan iyo waayaha ayaa iyaduna markaa tilmaami doona. wasaaradda waxbarashada shaqada qaabka ay u wado iyo wasaaradaha kale ee dowladda iyo guud ahaanba dadka mas-uuliyadda haayo oo maanta gacantooda laga yaabo aan fursado shaqo ama waxyaabo badan inay noqdaan iyo waxaa dardaaran ugu dambeyntii aad u diraysaa. madaalo hadaynu waa sheegay haddana mar labaad aan ku celinayaa, horta waddankeena fursado badan ayaa yaalo, laakiin cid ka faa'iideysa dadka qaata lama yaqaano. waxyaabo waxaa iska dhici karta qof dhowr meel inuu ka shaqeeyo iyada oo maaragta siyaabo qaldan loo marayo. wasaaradda waxbarashada waxaa is leeyahay waxay samaysay barnaamij ama waa doof wanaagsan oo ku dayasho mudan. wasaarada kale dabcan tan kama duwan, waddankay ku shaqeeyaan shaqo tan ka badanaa wasaaradaha qaar yaalo oo in la qabto mudan. waxaan ku dardaarmi lahaa in la dahafuro shaqada, dahafurnaan in la soo dejiyo wasaaradda beejeeda ay soo dhigto oo dhex tiraahdo ciddii ka bixi karto shahaadada noocaas haysto experiences leh halkana soo apply garayso. dadkii applicationada ku dirta hadana la fiiriyo naftirkooda oo list intii lagu sameeyo dadka ugu mudan oo experiences leh oo la keeno, haddana si dahafurun imtixaan ay u galaan. muwaadin weliba waxaa dhici lahayd in dadka waxbartaan ay ku dhiirtaan waxbarashada, waayo qofkan 3 anug ama 3 qof wala dhalatay waxbarashada dhameysay guriga joogto saaka iskuul aad markaa tiraahdo wuxuu leeyahay kuwii waxbartay meesha iyo tuurinani waa waqti inuu iga lumo mase oo meesha madadaalo maahan. waddan noocan ku noolnahay dhalinyaradii Yurub iyo Ameerika iyo wadamo kale ay fiirsanayaan. marka arrintaas waxbarashada way dhiirigelinaysaa horumarka dalkan qayb ay ka noqonaysaa. horumarka dalkana qayb weyn ay ka noqonaysaa. muwaadiniinta dhalinyarada oo hadda soo baxayso waxbarasho jirtana waa dhiirigelin fiican ay u tahay. olol fiyoowi iyo wax imaanayso iyo transparent waddanka dhanna toosi lahaa saas leeyahay. aad u mahadsantahay. guud ahaan saaxiibayaal waraysiga aynu la yeelnay al-ustaad Isxaaq Ibraahim Aadam halkaas aynu kusoo gabagabaynaynaa oo ku saabsanaa arrimaha waxbarashada gaar ahaan macallimiinta dowladda federaalka Soomaaliya u qaadatay oo 3,000 gaaraya uu ka mid yahay oo marxalado kala duwan inooga sheekaynayay. tan iyo waraysi mid kale mid intaan ku kulmi doono saaxiibayaal inagoo isku duwan sidaas iyo nabadgelyo.